annaga gari baan nahay maqaabal bahgari maxamed suwer waa ku soo soconnaa gariyaa ku soo socda dadka nala deganna garab inay nasiyaan ayakaba garab nasiyay dhii jireen maanta anigana waxaan leeyahay wajiya south dadka ku nool garab waa inay siyaan gari komba MP aan soo qaadanaynaa MP-gaas waa inay nala qabtaan waxaa la rabaa keetigaas ay garbaha isku dhudhufanayeen halkaas naaska maalintaana inaan dhidhiminaan rabnaa waan rajaynaynaa inaan ka helno qabiilkii midnimada laga hadlay wuu midoobay waxaan rabnaa wixii siyaasiga oo qabiilka uu soo magacaabo ayaa la isku raacaa guddigaasa soo xuli doona iyo garaadka soo xuli doona muwaafaqadii tolka iyo diin akhris iyo dantaasaa lagu jiray tolnimadii ayay ahayd way ansaxday alxamdulillah ilaah waa mahadle talada tolka iyo walaalnimada iyo ehelnimada yaa wadnaa beeshna la laabta ogaadeenkana saasa ka warqabeen marka dhalinyarta gari komba waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo farxad ayaan maanta sida runta ah maanta aad baan u farxadeysanahay waan ku faraxsanahay kulanka beesha gari komba waxaanan diyaar u nahay insha Allah inaan midnimada cidda anagoo dhalinyar ah aan ka shaqeyno waan ku faraxsanahay horta marka koowaad waan ku faraxsanahay saan u soo qaybgalnay beesha gari komba maanta maalin aan ka farax badanahay adduunka ima ay soo marin midnimo gari komba yaa saddex beri aan inta u taagneen si sharaf lahay nooga dhammaatay gacmahan isqabsannay guul aan weligaan gaarin baan gaarnay inuu ilaahay hor nooga sii wadaa ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaan kaloon ku darayaa daafaha caalamka Wajeer County hasa Wajeer South waxaan la degannahay ogaadeen aan wada dhalanay ogaadeenkaas baan ka mid nahay ogaadeenka annaga gari baan nahay maqaabal bahgari maxamed suwer afarta lafood oo Wajeer tagtaan ka mid nahay waxaan saddexda lafood oo walaalayaashayn aan ku soo dhaweynayaa maanta midnimo gari ah dhacday ku farxa sidaan annaga ugu faraxnay adinkana noola farxa xambaliyadaas ogaadeen aan u diraa waxaan ogaadeen aan ka codsanaynaa waa ku soo soconnaa gariyaa ku soo socda gari kombo oo aaboode waxaa la rabaa keetigaas ay garbaha isku dhudhufanayeen halkaas naaska maalintaana inaan dhidhiminaan rabnaa waan rajaynaynaa inaan ka helno walaalayaal waan ku soo soconnaa waa idin salaamaynaa salaam 114 quraanka aan ku salaamaynaa saddexda qoys oo walaalayaashayn warkaanaga aad u qadariya maanta gari garaadkiisa iyo culimadiisa iyo caamadiisa iyo raggiisa iyo bilcaantiisa waxba kama maqna salaantaas yaa la idin soo gudbiyay salaantaas naga qaada waa mahadsantihiin keetigii aan u soconno gacantiinaas ku jira waa inaan helna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta meeshaan waxaan iskugu imaanay annagoo beeshii gari kombe maaragtay in aan quraan akhrisanno kadib waxaan suubsannay strategic plankaas oo ma aragtay daadihinayo howlaha gari kombe oo ka shaqayn doono sida noloshooda ku saabsan ay ahaato siyaasad ay ahaato maaragtay sida kaloo guud marka annaka haddaan beesha gari komba nahnay strategic plankaas wixii ku jira ayaan aan ma aragtay aan qaabilsannahay aan aaminsannahay aanan ku soconaynaa wadajir annakoo meelna kala aadaynin inaan annaka kursi aanku ahaadaba aan annaka isoo sharaxna oon sanadkan qof kale u daba taagneen ayaan caddaynaynaa annaka waxaan nahnay beel idil oo Wajeer South dhinac ka degan kursi qof alla qofkaan soo qaadana ayaa matali doona kursiga MP-ga iyo wax alla wixii kale on county ka rabna marka waxaan leeyahay annaka meel alla dadka nala deganna garab inay nasiyaan ayakaba garab nasiyay dhii jireen maanta anigana waxaan leeyahay Wajiya South dadka ku nool garab waa inay siyaan gari komba MP aan soo qaadanaynaa MP-gaas waa inay nala qabtaan marka insha Allah waan isla joognaa waan isla shaqayn doonaa biidmillaahi kariim tuko pamoja bismillaahir rahmaanir rahiim maanta noo soo dhamaaday shirkii oo beesha gari komba oo saddex maalin ahay jimcadii sabtiga xaddi oo jimcada quraan akhriseed shalayna ma artay wada hadalkii taladii ay ahayd ay maantana garaadkii beesha gari komba uu ma artay akhriyo warmutiyeedka ka soo baxay fadhiga saddexda bari socday marka maanta aad baan u faraxsan yahay anagoo ma artay ku hadlay magacii beesha gari komba oo nahay ma artay xildhibaankoodii ay ka soo doorteen degmo baarlamaanka hoose oo Bureer Ward waxaan isku afgaranay inaan ma artay garaadka guddi ku xirnaan sameeyno siyaasadda
geedi socodka siyaasadda 2027 inaan maartay hal meel marno oo beeshii meel ku higno oo member of parliament kayna aan qof geysano meelaha kalena beelaha wajeer wada degan aan la xisaabtanno oo maartay wax ku darsano governor oo meel isku tagna marka waxaan faraxdeed aad u soo koobo maanta hadalkayga ma farxad badan baa maartay ka muuqata marka insha Allah waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer wajeer inaan maartay isku xirnaano oo nabad ka shaqeyno marka annagana waxaan leenahay beesha gari koomba nin Allah ninkii way furantahay nin Allah ninkii maartay aan wax la qaybsanayna waan soo dhaweynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاهد عبد الناصر عباس كفو أنا مشرح حلبان عدة بيشة جري جنبو تاجن كرسي الوجير ساوت أو كسوق قبل الشركة آد وحنو فرح سنة هاي قوامنا كسوق هاي شركة وآد فرحات قليل له وآد حوق اللو ساري مدن مد عدة أنا وحن كور هذين كرسي كان وعدة مجا عدة إيه مدن مدة أنا قاعدنا هو إيتاي qof kasta oo shakhsi ka soocidaan magaceeda sheeganaya dan u tahay taasna aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa wixii wanaagsan oo cidda xaggeed ina wax waan ku raadinaynaa waana la shaqeyn doonaa gudiga la soo bixina waan soo dhaweyneynaa wax dhib ma jira taasna waxaan waan sugeynaa wixii kale oo teamka ka soo baxay insha Allah Ibrahim Abukar Umar waxaan ahay nin oday oo ka tirsan beesha gari koomba jamcadi sabti iyo maanta oo axad qowskan gariga fadhi iyo kulan buu ku lahay meeshan meel walba la iskaga imaaday Nairobi Garissa ilaa countiga Wajeer Sielo meel badan la iskaga imaaday qowska tala guud u gaari iyo mid hoosa waxyaabaha ka soo baxay oo qowska arrimihiisa waxa ka mid ah guddi u taliya qowskan oo garaadka la shaqeeya yaa la qaban rabaa muddo 6 bari gudahood yaa guddigaas lagu qabanaa guddigaas oo siyaasad dhaqan wax walba qabiilka ka mathalaya ayaa la qaban rabaa qabiilkii midnimo laga hadlay wuu midoobay waxaan rabnaa wixii siyaasiga oo qabiilka uu soo magacaabo ayaa la isku raacaa guddigaas soo xuli doona iyo garaadka soo xuli doona marka waxyaabahan ka hadalnay intaas ay ahaayeen waxa kale oo qabiilka uu ka hadlay midnimada nabadgelyada iyo dhaqanka iyo wada noolaashada bulshooyinka aan isla deganahay oo ama ilma adeerka aan nahay ogaadeenka dagoodiga ajuuraanka iyo Soomaalida kale iyo dadka reer Kenya kaleba inaan wada noolaan maxay la qoyskan Nairobi degan yahay Garissa degan yahay ilaa Busia Uganda Tanzania meel walba degan yahay inaan midnimada ka shaqeyno waxaan meesha ka sheegaynaa midnimada toleed iyo wixii horumar oo la rabay in la gaaro insha Allah billahi ta'ala talka muwaafaqadiisa iyo waxaas bay ahayd ma ahayn xirdi colaadeed iyo qabiil rixiis iyo si kale iyo dabandaba kale ma ahayn muwaafaqadii tolka iyo diin akhris iyo dantaas lagu jiray tolnimadii ayay ahayd way ansaxay alxamdulillah ilaaha mahadle guddi koomitiya jiro وعقبت تولد بادرته إن شاء الله بإذن الله تعالى شركة تلك ساسة يكسر ختمتي حد واد ماتي أنا بشكر كومبا شركان إلا سبع بريال داد هنا بنت جريجا إيه لماذا إيه ولا لماذا بشكر كومبا رضع وياي وحمان وكرو النمرة تلك إيه ولا لماذا إيه لماذا يا ونا بشنا الله توجدين كنا ساسة كبر قبنا وحضور بلايم ونا إلما ونا تنتاينا ونا كومتي أجت وقت أجت إن شاء الله خاصة وجار صوت نودي إسلامي والعالم اللي يقول جوارنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحماي سيد بلا عبد حسين باش جريكم بويا شيء بقى كان كجرا صدق معنا فدني وعن اسكر علي إن جودي سماي سنو جودي جاس وقبيل كحاجة walaalaha aan wada nool isla dhalaan oo isla deganaa nabadgelyo ku noolaada jiiraamaha nabadgelyo ku noolaada wixii darahooda ahna ay dhameystaan si oo isku raacid iyo nabadgelyo iyo wanaag iyo midnimo ku heshiinay ninka walaal loo wax la qaybsan doonana markaan danta in iska dhex aragnaan ka tashan doona anagana hadda nabadgelyaas aan isku raacnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi meeshan maanta waxa isugu imaaday beesha gari oo go'aamo ku gaartay ku heshiisay ku nabdowday dhan siyaasi dhan diineed ehelnimo si walba ku midowday waxa odayaasha ay sheegeen dhammaantood waa run anigu waxaan ka imaaday meesha Daaro Xuseen aan yiraahaa meesha la yiraahaa Bilcilburbuur location Bilcilburbuur meeshaas maanta go'aan bay meeshan ku gaartay waana lagu heshiiyey war dhammaaday assalaamu calaykum bismillahir rahmaanir rahiim aniga waa Ibrahim Siraad
أستاذ كوميدية وهاي معركتي ميتينغ waxaan qalqalinay maaragtay bariyan baa qalqalinaynay saddex bari ayaan mitiga qabanay gariga oo soo yimaada unity of purpose ma laga hadlayay iyo midnimada maaragtay iyo political relevance ayaa laga hadlayay maaragtay alxamdulillahi rabbil caalamiin waa israacay dadkii waa israaceen ummadii maaragtay xalay noqotay marka waxaan doonaynaa inaan maaragtay siyaasadana aan ka qayb galna oo maaragtay aan qabsanna maaragtay wixii siyaasadda maaragtay xubnooyinka siyaasadda maaragtay oo countiga iyo national kaba aan ka qayb galnaa doonaynaa maaragtay maanta maaragtay dad badan alxamdulillahi rabbil caalamiin cidda guddi waa imaaday waa la soo imaaday ilaa maaragtay meel kasta laga imaaday marka waxaa loo imaaday waxa way maaragtay midnimada ciddana maaragtay waxay ku guulaysanay maaragtay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ku guulaysanay inuu midinkii maaragtay si fiican noogu dhacay oo midnay yani midnimada aan muujinay magacayda waa Xuseen Axmed Cabdullaahi waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo farxad ayaan maanta sida runta ah maanta aad baan u farxadeysanahay waan ku faraxsanahay kulanka beesha Geri Komba waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan midnimada cidda anagoo dhalinyar ah aan ka shaqeyno waxaan diyaar u nahay in qabaa'ilada kale ee nala degan wadanka Wajeer County iyo Wajeer South inaan la wada shaqeyno insha Allah waxaan diyaar u nahay midnimo iyo nabadgelyo inaan ciidaha iyo qaraabada kale oo diriska aan la nahay inaan kula dhaqano taas ayaan diyaar u nahay insha Allah وانا دادالينا وحان ديار وناها وحي دادك كلا اي رمان انان اناغانا ان ربنو ان شاء الله اونا رادسان دونا وحي دولدا نوغا مقان marka insha Allah intaas ayaan u baahan waan ku faraxsanahay horta marka koowaad waan ku faraxsanahay saan u soo qayb galnay beesha Geri Komba farxadda in la soo koobi karo maadaama hadda aan ka soo qayb galnay beesha Geri Komba aad ugu faraxsanahay maanta farxaddeeda lama qiyaasi karo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay wiilasheena quruxda badan iyo gabdhaheena shidan inaan meel ku midoowno oo wada kulano oo Geri aan isku wada imaano dhamaanteen aad baan u faraxsanahay maanta aad baan runtii ugu mahadcelinayaa tolka iyo dhammaan qabanqaabayaasha xafladan quruxda badan ee halkan ka dhacday ee isku yimaadeen tolweynaha beesha Geri Komba oo anigana aan ka soo jeedo tolka runtii waxaan u sheegayaa midnimada in ay tahay shayga kali ee lagu meel mari kara lis adeeca madaxda laga dambeeya garaadka iyo guud ahaan siyaasiyiinta oo ugu horeyso maamada iyo inta kale oo madaxda la soo doortay iyo inta la soo dooran intaba iyo loolamayaasha dhamaantood la tixgeliyo qof kasta maaragtay hamigiisa lagu tixgeliyo dawayntii ku dara udoodkii ku dara midnimo doonisteedii ku dara